kulankani ka dhacay Baydhabo ayaa ahaa mid wada tashi ah oo looga hadlayay qabiil qoraalka siyaasadda iyo xeerka qaran ee deegaanka waxaana ka soo qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas agaasimaha guud iyo khubaro kale oo ku takhasustay arrimaha deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isaaq Maxamuud Mursal ayaa marka hore ka hadlay shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay Koonfur Galbeed meelun miskooy masakin dhoyn fadane masafadni in shir markaasiti muhiim ah wasaaradda beeraha iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markaas jeedshii in wal la kadar qabiil qoraal siyaasadda heerka deegaanka Soomaaliya isla marhaantiina ku qeyb galeen wasiir wasaaradda shalduun hay'adda oo runtii arrimaha qoseeya iyo ururada bulshada maamulka iyo qeybaha shalduun ururada dawliga iyo hantiyahanaba walina farxadnin inuu si sheegna maadaama deegaanka iyo isbeddelka cimilooyinka kuma tahay waajibada kuma tahay wasaaradda beeraha maamulka Koonfur Galbeed igmadi way faa'iidii farxadnin inuu walka darsadahay masano kala qeyb galaan shir walka darsadaw Ahmed Yusuf Ahmed oo agaasimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya markii ay aragtay in uu jiro gaab weyn oo dhanka deegaanka isla markaana go'aansatay in laga shaqeeyo siyaasadda deegaanka dalka iyo shuruucdeeda si xaalufka jira wax looga qabto especially sectorska gaarka maxaa ku dhashay dhaqaalaha Soomaaliya ku xiran yahay kuwaas oo u baahan shuruuc gaar ah oo environmentiga in lagu maamulo siyaasaddan waxay u baahan tahay ama ay cadeynaysaa ama hoosta ka xariiqaysaa roolka iyo responsibilityga qola kasta oo environmentiga ama deegaanka dhinac ka soo gelaysa sida ay tahay inay maxaa ku dhahay sheegay ay uga qayb qaataan policyga national levelka waxay lagu apply gareyn doonaa haddii la yiraahdo dalka Soomaaliya oo dhan iyadoo foundation noqon doonta environmentiga deegaankeena haddii ilaahay yiraahdo dhammaan maamul goboleedyadana qaybtoodna hore oo wada tashanay qaybna waa anaga maanta ka tashanayna qaybta dhimanna haddii ilaahay yiraahdo waan ka tashan doonaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Cali Isxaaq oo shirkan wada tashiga ka furay Baydhabo ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la helo shuruuc dhameystiran oo deegaanka lagu ilaalinayo runtii wasaaradda geedka uga fursad helay nasiib helay inay meelahay gobolada gobolkan Horyal iyagoo la hadlayo arrimo siyaasadda la kala fadi ama la kala fadi wadankan Soomaali sameeyay moon ku jeysana fikradeen iyo meelahay aqoontaan ku jeysan yageek fursadaas sunna siyaasadda oo deegaankan wadankan la kanaga way buuha umum way ba kuma dana maadaama reer Koonfur Galbeedna wadanka Soomaaliya kuma dana way balana fikradan inuu ka darsana meelahay walay qabiil qoraalkan ee la qoray inuu ka daran fikradan ka daran markii meelo loo qadar hata naftiya Soomaaliya wiinta gobolada shalduunin gobolada naftiya way bashalayeen waa markii labaad oo shir looga hadlay arrimaha deegaanka uu ka dhaco gudaha dalka iyadoo kankii ka horeeyayna uu ka dhacay maamul goboleedka Puntland Mukhtaar Sheekh Aadan Dalmar telefishinka raadiyaha dalsan Burshan Wiinay Baydhabo Janaay